waxaa la sheegaa dumarka inay yihiin dadka ugu adag dunida in dabeecad ahaan loo fahmo. ragga intooda badan waxaa ku adag inay fahmaan dareenka gabadha iyo sida dhacdo kadibna akshankeedu uu noqon doono. ragga qaarkood waxaa aad ugu fudud dumarka in si degdega xiriir ay kula sameeyaan, halka ragga qaarkoodna ay ku adag tahay xitaa haddii xiriir ay la sameeyaan waxaa si degdega kusoo afjarma xiriirkaasi sababo ay ugu wacan yihiin isfahamwaa labada dhinac ah. waxaana la sheegaa ninka keliya ee gabdhuhu ay fahmaan waa ninka soo jiidashada badan. qofka ragga ahna waxaa ka dhiga mid soo jiidasho leh waa ficilada uu sameeyo. ficilka ayaa ah wax gabadha maskaxdeedu si fudud ay ku qabato. muuqaalkan waxaad ku arki doontaa astaamaha ugu caansan ee dumarka ragga ay ku jecel yihiin, ama haddii ay arkaan si fudud ninkaasi ay ku jeclaanayaan. si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad ka heshay kategoriga mawduucyadani oo kale, like inaad saarto waxay naga caawinaysaa mawduucyada kale ee soo socda nooca ay noqon doonaan. mahadsanid. waxaa la sheegaa ragga iyo dumarka waxyaabaha isku keeno ay ka siman yihiin badanaa waa muusiga. gabdhuhu waxay si aad ah u jecel yihiin muusiga, ragga ay badanaa xushtaanna. inkastoo faktori muhiima qodobkani uusan ahayn, haddana qofka in muusigiska uu wax ka yaqaano waxay ka caawinaysaa inuu credit ku helo. nooca muusiga ee qofka uu jecel yahayna waxaa lagu gartaa dabeecadda qofka iyo nooca uu yahay. gabdhaha qaarkood marka ay jecel yihiin heesaha qaraamiga ah, qaarkoodna waxay jecel yihiin heesaha cusub ee sanadka. qofka ragga ahna waxa uu si fudud ku fahmi karaa gabadha karakterka iyo nooca ay tahay. aadaabta. gabdhaha waxay aadka u jecel yihiin ragga ixtiraamka iyo qadarinta badan. waxyaabaha ugu badan ee qofka ragga gabadha uu ku soo jeedan karana waxaa la sheegaa inay yihiin ixtiraamka. haddii gabadha ay aragtay qof ragga uu caawinaya ama ixtiraamaya dadka kale, waxay ka mid tahay waxyaabaha wiilashu gabdhuhu ay ku soo jeedan karaan. dumarku maadaama ay jilicsan yihiin waxay ka helaan ragga sidoo kale naxariista badan. awoodda maamulka. dumarka si kastoo ay u necab yihiin inay maamulka ragga ay hoos imaadaan, haddana waxaa la ogaaday inay ka helaan ama karakter soo jiidasho leh u ah ragga awoodda ama heybadda maamulka hibada u leh. astaantani maamulka ragga waxay ka dhigtaa mid awood leh, dumarkana ragga awoodda leh waxa ay jecel yihiin inay wehel ka dhigtaan. feministiga in la taageero. feministiga waa fikir dumarka ku bogaadinaya in raggu ay la simanaadaan, wax walba ee ragga uu qaban karana ay la qaybsadaan. si kastoo tanina mawduucyo ay ka midka yihiin xuquuqda loo soo hoos dhiga, haddana dumarka waxaa la ogaaday inay aadka u jecel yihiin ragga feministiga taageera oo garab ku siiya inay xuquuqdooda dumarka raadsadaan. waxaa la xaqiijiyey wiilasha feministiga taageera marka loo ego kuwa aanan taageerin dhexdoodu inay yihiin kuwa aadka loo jecel yahay kuwa feministiga taageera. jacaylka ciyaalka. gabdhuhu marka ay doonayaan qof inay xiriir la sameeyaan, badanaa waxay ku fekeraan mustaqbalka iyo qofka sida ciyaalku u xanaanayn doono, haddii mas-uuliyad uu qaadi karo ama in kale. qofka ragga ee aadka u jecel ciyaalka waxaa la ogaaday kan aanan ciyaalka jeclayn ama xitaa mawduucyadaasi aan ku howlanayn, gabadhu waxay kala baxdaa wiilka ciyaalka jecel. gabdhuhu si kastoo aysan ugu fekerin mustaqbalka iyo mas-uuliyad qaadidda qofka, haddana silsilada taariikhda bani'aadamka waxaa la ogaaday dumarka maskaxdoodu inay ku koodgaraysan tahay bilowgiiba xulashada lamaanaha, haddii mustaqbalka mas-uuliyad uu qaadi karo ama in kale. kalsooni. gabdhuhu waxay aadka u jecel yihiin ragga naftooda ku kalsoon. tanina waxaa example looga bixin karaa ninku waa inuusan gabadha weydiin haddii ay doonayso ama haddii kale in casho ay u raacdo, balse waa inuu u sheegaa in uu doonayo isaga in casho ay la aado, go'aankana isaga uu ka soo fulay, iyadana uu doonay inuu weheshado. gabadhu hadalkani waxa uu siinayaa dareen iyo qadarin weyn in qofka qalbigiisu ay ku leedahay. tanina ninku waxay jaanis u siinaysaa in gabadha si fudud qalbigeeda uu ku kasbado. balse qodobkani cashada dhaqamada dadka siday u kala duwan yihiin ayaa dadkuna habka hasaabahooda u kala duwan yahay. waa in qofku ugu yaraan naftiisa kalsooni xad dhaafa uu ku qabaa, gabadhana uu u muujiyaa heer sida in isaga uu leeyahay oo kale. tanina waxaa hubaal ah in gabadhu isbishiyaalnimo ay u dareemayso.
kalsooni. Si kastoo labada dhinacba kalsoonidu ay u tahay wax aad u weyn oo looga baahan yahay, haddana qofka ragga marka loo eego gabadha ma jecla wax khiyaano ah, mid yar iyo mid weynba. Gabadhu haddii ay ku aragto qofka ragga wax yar uu qaranay in muddo ah, waxaa macquul ah inaysan dareemsiin, balse iyaduna furfurnaanta iyo wax isla-sheeganaanta inay joojiso ayay u badan tahay. Haddii tanina muddo aad u dheer oo badan ay socotona, waxaa macquul ah in xiriirkaasi cirib xumo uu ku dhammaado. Garaynta jinka. Gabdhuhu si kastoo caan ay ugu yihiin qurxinta jinka iyo nadaafadda, haddana ragga si ay u soo jiitaan dumarka, waxyaabaha laasimka ku ah waa sida dumarka oo kale in labiska iyo muuqaalka wejigaba ay aad uga taxadaraan. Waayo isqurxintu waa waxa ugu horeeya ee qofka qof kale uu ku soo jiidan karo. Maanta dumarka intooda badan ragga nooca ay doonayaan waxa ay ka fiiriyaan qofka isteelkiisa iyo qaabkiisa. Qofka haddii isteelkiisa uu wanaagsan yahay, waxa uu jaanis u helayaa inuu helo dumar badan oo aad u jecel. Romantic. Ma jirto gabar aan jeclayn romantiga. Gabdhuhu maadaama jacaylkiiyo naxariistu ay ku badan tahay qofka ragga ee wanaagsan ee gabdhuhu aysan iloobinna waa qofka romantiga ah. Qofku waa in lamaanihiisu uu la qaataa xilliyo qaas ah, xilliyada qaarkoodna waa in hadiyado aysan filanayn uu uga farxiyaa. Si kastoo tani dhanka ragga ay u tahay wax aad u yar, gabadha dhankeedu waxay ka tahay wax aad u weyn oo aysan si fudud aysan ku hilmaami doonin. Dhaqaalaha. Si kastoo aanan loo dhihi karin gabar walba waxa ay ninka ku raacdaa dhaqaalaha, haddana waxa in hoosta laga xaqiiqo mudan gabadha inta aysan qof xulan ka hor, waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka caawinaya qofka inuu soo jiita gabadha waa dhaqaalaha. Muhiim ma ah qofka inuu maalqabeen ama taajir uu noqdo, ugu yaraan waa inuu ahaadaa qof shaqeeya oo ay soo galaan wax uu ku noolaan karo ama uu ku baashaali karo. Labada dhinacba si kastoo dhaqaalaha muhiim u yahay, haddana meelaha qaarkood waxa uu dhaqaalaha galaa kaalinta koowaad ee weliba la isku xushto. Kaftanka. Waxaa la ogaaday dumarka inay aad u jecel yihiin ragga kaftanka iyo qosolka badan, balse waa inuusan xadka ka bixin. Dumarka ma jecla ragga kaftankoodu xad-dhaafka uu yahay. Waxaa la doonayaa si dhexdhexaad ah qofka inuu ahaado qof la fahmi karo, dhinac walbana kaftankiisu loo xiiso. Marka loo eego ragga kaftanka badan iyo ragga aanan kaftanka aqooninna, waxaa la ogaaday in dumarka ay xushtaan ragga kaftanka iyo qosolka badan. Ragga dhaadheer. Khubaro psychologistayaal ah tijaabooyin ay sameeyeen waxay soo saareen ragga gaagaaban iyo ragga dhaadheer marka jacaylka la jooga in kaalinta koowaad ay ku jiraan ragga dhaadheer. Dumarkuna waxay inta badan xushtaan ragga dhaadheer. Thank you.